puntland ayaa sheegtay inay ku dhiirigelinayso ciidan maanta ee tababar u soo xirtay inay dagaal la galaan ciidan ka tirsan BSF iyo danab oo dawladda hoostaga kuwaas oo fariisimo ku leh magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso taliyaha guud ee ciidanka difaaca puntland Cabdi Aadan Xaashi ayaa hadalkan sheegay xilli maanta tababar loo soo xiray ciidan ka tirsan puntland xirada Xargoble oo ku taala magaalada Qardho oo dawladda dhexdeeda saaqiday oo dad ina ka dhax qoranayso oo mushaarka inuu ka digay kuwaad inaad qabataan baan idinku dhiirigelinayaa halkan waxaa xilligaasi ku sugnaa hogaamiyaha maamulka puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxaana taliyaha guud ee ciidanka puntland uu sheegay hadalkan isagoo u muuqda inuu diray fariin dagaal waxa uu la sheegay in ciidankan laga doonayo inay soo qabqabtaan ciidamo uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka dhax qoranayso deegaanada puntland ayaa hore dagaal ula gashay ciidamada BSF iyo danab kuwaas oo dawladda iminka hoostaga waxaana jira dagaalo xilliyo kala duwan dhaxmaray intii uu joogay hogaamiyaha xilligan puntland maamula Siciid Cabdullaahi Deni isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga